السلام عليكم أصحابتي walaashey Najib Cuisine mar kale muuqaal cusub kusoo dhawaada idin leenahay fadlan hadaa hore nala joogto aad iyo aad aan mahadsan hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir muuqaalkana dhameyso aad iyo aad u faa'iido kugu leeyahay waa rajeynaa inaad ka heli doontid maanta halkan waxaa noogu hayaa cabitaan aad iyo aad u faa'iido badan halkan waxaa noogu hayaa cabitaan aad iyo aad u faa'iido badan oo caafimaad badan maasha Allah hadii aad baratan walaahi wax kale aad isticmaali doonin halkan waxaa ku haysanaa beetroot laba xabo beetroot ku haysanaa ama beetraaf aad sida u taqaanid iyo hal xabo avocado ku haysanaa waxaa bilaabeynaa hadda inaan soo fiiqno beetrootka aan soo fiiqno qashinka hore ka soo qaadno ujeedin hadda waxaa fiiqaya beetrootkeena midka ureeya fiiqaya walaa cabitaankan aad iyo aad u faa'iido badan yahay hadaa tahay hooyo xaamilo qof dhiig la'aan hayso waxaas dhan uu u fiican yahay dhiigaagu korinaa wax badan ka faa'iiday waxaa waaye cabitaan hadaa ka dhigatid maasha Allah faa'iido badan ku jirto inaba caadi ma aho marka waxaa sameynaysaa ana hadda waxaa sameynaa waxa ku daraa avocado ku daraaya ma jecli kaligiis inaan cabo ma jecli marka waxa ku daraa avocado xabo ku daraa hadaa rabtid any fruit oo rabtid ku dari kartaa adi aad jeceshahay markaas aad ku dari kartaa cambaha ku dari kartaa maxaa ku dari kartaa ismaandhays wax walba ku dari kartaa marka laakiin muhiimada waxaa in asaga ku badan yahay labadaas xabo hadda caadi ma ahan waxaa faa'iido badan ku jirto avocado ku jiraayo waxaa waa xitaa hal dhameystiran ma aha jab camal isticmaalena half isticmaala marka waxaa waaye soo jajareena hadda soo diyaarineyna blenderka gelineyna kadib isku soo laaban doona hada marayo kaligiis marayo inaan isticmaalo waxaa kaligiis ma cabi kari waxaa ku daraa avocado xira ku daraa si dhadhankiisa wax kale ugu soo dhadhamaan cabitaankada oo beetroot bas uu yahay avocado xira waxaa ku daraa hal xabo ku daraa laakiin asaga u badan marka caadina faa'iidooyin badan ku duwan waxaa waaye warjeena ma tijaabin doontid gacanta dhan gadidayga noqotay marka saxaabi hadda waxaa sameyneynaa waan jarjareynaa gogoneynaa waxaa waaye asaga saaid u adag yahay beetrootka aad u adag yahay waxaa loo baahan yahay inaa xoogaas si yar ee kugu shiidi karto blenderka wax dhib kaa gaarsiinayna u jartida loo baahan yahay dadka qaar way kariyaan baariga waa karsan kartaa وطبعا كريمي وشيلة كريم لهم استعمال سيران وصول وحاربتها ku darsan kartaa hadaan cabtahay kaligiis inaan cabtid inkastoo kaligiis fiican yahay waxaa jeceshaha ku darsan kartaa cadaarka camba ku darsan waxaa ku darsanay isbaandhayska ku darsan kartaa waxba ku darsan kartaa kharaha waa ku darsan kartaa muhiimada waxaa waa in asaga u badisid
beetrootkeena hadda waan soo wada jarjarnay. waxaan rabaa inaan ku darsado soo jarjaro kale afkaadhada aan ku dari lahaa. waxaan ku darsanaya afkaadhada ku darsanaya kaligiis hadaa cabi kartid kaligiisa ku fiican, kaligiis iska shiido. waxaan ma cabi kari kaligii ma jecli. halkaan waxaan kusoo shubanaya afkaadhadii ku darsan lahaa. soo kala jeexe jawaabka isticmaalaa. halkaan waxaa noogu jiro afkaadhada isticmaal rabnaa noogu jirto. waxay bul leedahay iska leedahay. ku darsanayna beetrootkeena afkaadhadii kadibna isku darsanayna. kaas kala aadayna. hadda blenderka waxaa kusoo shubay beetrootkeeni iyo jabka afkaadhaha isticmaalayna. biyo kusoo daraa waxyar qiyaas iyo sokor aad inta jeceshaa qiyaastaada isticmaalaysid ku darsane. dan waa soo shiiday si fiican blenderka usoo gelinay ilaa si fiican usoo shiidmo. labada xabo beetrootka ahayd iyo jabka afkaadhaha cabitaankaas dhan aan nooga soo baxay. intaas dhan la eeg saaid oo culus hadaa rabtid inaad kasii xitaa khafiifisid biyaa ku dari kartaa. laakiin ani hadda ma rabin sidiisaan rabaa culus inaan ku isticmaalo. cabitaan badanaa kaga soo baxay beetrootka siduu u yaryahay siduu haddana uu cabitaan badan yahay ma islaho. hadda marka waan soo miirayna ana miira soo qaatay aan kusoo shubaya miiraya. waxaan rabaa inay ka haraan waxa qashinka dhan. inkastoo qashin lahayn waan fiiqay hadaa beetrootka waan soo fiiqay wixii kale dhan waan kasoo nadiifiyay. dan malahan hadda qashin dhan ma qabo. waxaa waaye nadiif waaye sheeko waaye. waa aragtaan suu u qurux badan walaa u macaan badan yahay. inaba caadi ma lagama sheekeyn karo.
beetroot caafimaadkeena u fiican yahay wax walba u fiican yahay laga bardoono isagaas la isticmaalo baratid isagaas la isticmaalo walaa cabitaanka dhan ma lagu kari doono waxaa rajeynaa inay soo tijaabisiin special hooyooyinka waxaaba kuwa uurka leh kuwa nuujiyaan waxaas dhan u fiican yahay dhiigu u soo celinaa maasha Allah arag sidoo quruxsan yahay oo culus yahay hadaa rabtid waa kasii biyeysan kartaa biyo ku dare laakiin hadda aniga saan ku isticmaalayaa maasha Allah cabitaan badan kaaga soo baxaayo inta waxaan ku shubayaa galaasida ku shubayaa sida qurux badan waa dhadhankiisa